uqaaliyo wax garad ka tirsan beelaha deegaanka bariga gobolka saaxil ayaa cabasho iyo faragelin maamul ka muujiyay in lagu hayo tuulooyin ka tirsan deegaankaasi oo hoos yimaada gobolka saaxil waxaanay wax garadkan iyo madax dhaqameedkaasi oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Berbera ee xarunta gobolka saaxil ay eedeymo u soo jeediyeen maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo barasaabka gobolka saaxil Jaamac Yuusuf Axmed iyagoo fariin la xidhiidha cabashadoodana u diray madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ku beeray ay jiraan oo la sheegay san magaalo oo mid yahay biyo guure oo mid yahay eedgadi oo mid yahay magab oo mid yahay bahdoon dad aanu cidiba ka oolin sheeganaya waxaanu leenahay raggaa sheeganayo waxaanu leenahay arrintaa dib uga noqo garab iyo boolitiis ka bixi wasaaradda tamarta iyo macdanta haraan uga warrano waa soo dhaweynay wixii aanu dhaliil u aragnana waa toosinayna ishortaag ma jira waa toosinayna sababtoo ah waxa go'aankii hore ee warbixintu ahayd meesha ay u baxaan deegaankeedu naafic iyo nabadgelyadeeda ha qaato waxaad moodaa naaficiina in aqaqaba leeyo faa'iido la walibu naaficiina in cid qaadatay dhibaatada iyo cagaftii cid ordaysa taa waxaanu waa toosinayna wasaaradda tamarta iyo macdanta waxaanu fariin u diraynaa Cabdishakuur waa garanayna isaga iyo aabihii iyo awowgii iyo reerkooda waa garanayna isaguna dadka waa garanaya beeru kuleeya biyo guuradee yaal oo dadku yaal buu ka mid yahay laakiin oo limaadkii uu ku nabad qabay kuma ekaane sheegashu keena waxaan leeyahay xigtadiisa uu ka dhashay marka hoostoo kaco reer sahla waxaan leeyahay Cabdishakuur sidii madaxa waayeelka horeba ka dhawaajay hadii wax ka maqan yihiin oo bariga Berbera wax kaga maqan yihiin wiilka baan leenahay isaga iyo waxaanu ka maarmay waa la eegaya haddaan waxba ka maqnayn dhibtii hore nafiya maalba inaga baxay xukuumadda ciidamadeedii iyo dadkii beelaha ee meesha joogay mid walba kaga baxeen iyo mar labaad soo wadaaye Allah inaga qabtay guntada oo qabta wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha hay'adda nabadgelyada ku shaqaale halka waxa ka taagan dib maayirka asaawada aad iyo aad beesha bariga u kacsan tahay meel xubay ka gaadhay isaga gaarsiiyay horay mar saddexaadkii waa kan wada waxaan leenahay laga soo gaaro imka waxa la leeyahay madaxba hogaaminaysa ninka madaxda ahay saddex arrimood midna shaqo kuma leh fidmada horta shaqo kuma leh dagaalkana shaqo kuma leh waa ninka ugu eedayan baa horta madaxdu tahay waxaan leeyahay wal madaxdan waxaan ku leenahay balbalaqiiq baa ka taagan dawladda Soomaaliland maanta jirtana waxaan leenahay hadii bahashaas u dega weyday oo muddo dheer ay jiita badan yeelatay anaguna waxaan nahay dadkii nabadda loo doortay xukuumadda soo fargeliso cid xaq u leh Soomaaliland hadday tahay golayaasha hadday tahay xukuumadda lafteeda hadday tahay shacbiga Soomaaliland hal eego goobta waxa ka jira hadii ay tahay waxay leeyihiin nadeehan loo qaataan hadii kale aflagaadada gafka la joojiyo gobolka waxa loo soo magacaabaa barasaabku isaga madaxweyne gobolka dadka wixii isqatay isaga u garnaqa wixii loo maacuno waayana maxkamadda la geeyay in gobolka barasaabka loo soo magacaabo ee madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha soo magacaabana loo soo diro cid kastaba ha ahaadee inuu gacanta ku dhigo oo ku duulo oo uu noqdo barasaabkaasu mid Cabdishakuur wuxuu fuliyo ama raali ka yahay maahaane barasaabkaasu mid aan wax kale fuli karin ninka imika barasaabka waa nin miskiin aan ceeb lahayn laakiin masuuba heshado wuxuu gaarsiiyo hoos u gaarsiiyay inuu mas'uuliyadiisii ka qaado ku ciriiriyo madaxweynaha u diraya frintka waxa u diraya beesha aan tolkana Maxamed Ciise waliba reer Sal maayirku hadii day wax ka maqan yihiin sidii chiefku sheegay hal golo keeno hal wada hadlo gariigal baa beeshu tahay iyo deegaankuba yahay si ceeb la oo tasliix oo nabadgelyaaba hawsha hadmaayo ay uga wada hadlayna haddaan waxba ka maqnayn dhanka kale maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Ciidin oo ay khusaysay eedeymahani ay u soo jeediyeen uqaashan iyo wax garadkan oo TV-ga Ariel isku dayay inuu wax ka weydiiyo eedeymahaasi loo soo jeediyay ayaana inoo suura gelin kadib markii uu qaban waayay telefoonkiisa gacanta oo aanu ka garaacnay waa Axmed Saciid Maxamed Ariel TV magaalada Berbera.